iskuulka hoose dhexe Universal ee magaalada Burco ayaa kamid ah dugsiyada farakutiriska soo saara arday aqoon iyo akhlaaq leh oo ka soo dhex muuqda bulshada gobolka Togdheer waxaana iskuulka Universal uu manhajkiisu ku baxaa manhajka wasaaradda waxbarashada iyo sidoo kale luqadda Ingiriisiga sidoo kale maamulka iyo macallimiinta iskuulkaasi ayaa ah kuwa khibrad iyo aqoon u leh waxbarashada iyo soo saaridda arday aqoon iyo akhlaaq dhisan iskuulka hoose dhexe Universal sanadkan waxa ka baxaya ardayda fasalka iyadoo iskuulku sanadkan uu qaadanayo arday cusub ee fasalka koobaad ardaydan ayaa ka marxaati kacaysa aqoonta iyo cilmiga ay ka barteen iskuulka hoose dhexe Universal ee magaalada Burco waxaan ku salaamay salaanta salaamka aniga ardayd kamid ah dugsiga Universal magacaygu yahay Nuure Yaasin Axmed waxaan idin sheegayaa in ay waalidiintu keenaan dugsigan wax ardayda wali caruurtooda si ay uga helaan waxbarasho tayo leh maaha luqadda Ingiriisiga kaliya Carabida maadooyinka oo dhan waad ka faa'iideysan waayo anaka waxaan imaanaa ka waxba garaneyn maanta Ingiriisi Carabi iyo maado kasta ma sha Allah si aadan uga hadlanaa marka waxaan ka codsanaynaa waalidiinta la jecel ardaydooda caruurtooda inay bartaan waxbarasho tayo leh inay la yimaadaan dugsiga Universal magacaygu Maxamuud Cabdikariin Maxamuud waxaan dhigtaa dugsiga Universal ee magaalada Burco waana xaqiiqdii hoyga quriya ee tacliinta gobolka Togdheer taalo hadaba hooyooyinka la jecel ubadkooda waxbarasho tayo leh waxaan ka codsanaynaa inay dugsigan keenaan oo macallimiinu daacada dhigista waxbarashadu kula diyaar yihiin har iyo habeen kuna soo dhawaada dugsiga Universal fariiciisa Burco. First, my name is Abdullah Muhammad Osman. I'm student of School Universal Premier and Intermediate. I'm class 8. Today I want to suggest a topic about education. First, many people say why education is important. The importance of education cannot be stated enough. It's a self-enlightening process. It's the key of the life. Education is the most powerful weapon we can use to change the politics of the world. The first time we are introduced to formal education is in school. The school years are institutions that lie the foundation of person's development. They play a key role in the developing children into responsible citizens and good human beings. Education is a school where a young talented person is recognized and nurtured. Education is so important because it teaches us the right behaviors and good manners. To finish my speech, I want to say advice to the people who want to be talented in education. So I'm advising you to educate so well. So thank you for your listening. dhigtan iskuulka Universal ahna ay ka imka baxaya waalidiinta waxaan sheegaynaa inay keenaan iskuulkan arday ciyaalkooda iskuul ay u tayo badan kaasoo tusinaya ardaydan say u dadaalayso to greet you today Islamic greet peace of Allah be upon you today I would like to talking about the brain as you know brain is the second pillar of the Islam as you know Allah gave us to worship him alone if you neglected the brain Allah will remove you to the head but if you pray in the best way Allah will remove you to the paradise I wanted to finalize my speech my brother and my sister in Islam fear of Allah wherever you are Ali Channale oo kamid ah macallimiinta gobolka Togdheer isla markaana ka tirsan macallimiinta iskuulka hoose dhexe Universal ayaa bulshada ku dhaqan magaalada Burco ugu bushaareeyay inay qaadanayaan sanadkan arday cusub ee fasalka koobaad sidoo kalena waxa uu ka waramay dadaalka ay geliyaan ardayda waqtiga ay ku jiraan waxbarashada fasalkan waxa weeye fasalka 8 ee dugsiga hoose dhexe Universal maanta waxay sugayaan maadada ugu dambeysay imtixaanka oo ay galiyaan xisaab galiyaan iskuulkan wuxuu ka kooban yahay fasalka koobaad ilaa fasalka 8aad saad ku aragtay qaybo far badan oo kamid ah iskuulkan ardaydu aad bay u dadaalayaan way soo diyaar garoobeen imtixaanka aad bay soo diyaar garoobeen natiijooyin fiican oo filayaan anagu fursadan ka faa'iideysanayna waxaan u sheegaynaa dadweynaha ku nool gobolka Togdheer inuu iskuulku yahay iskuulka ugu horeeya gobolka Togdheer marka waxaan waalidiinta u sheegaynaa la jecel caruurtooda waxbarasho tayo leh inay iskuulka keeni karaan ku aanu aamini karayaan marka saad arki doontaa maartay ardayda luqadda Ingiriisiga ku hadlayso say maadooyinka wada fiican tahay waxaan filaynaa in maartay waalidiintu ay ku soo dhiri doonaan inay keenaan iskuulkan
ardayda caruurtooda si ay waxbarasho tayo leh u helaan. Khaliil Barra Awraan, shabakada caalamiga ee Burco Online, magaalada Burco.